gabadha garab siiso replay bay u soo gashay waxay u qortay fuck you naya macnaha fakir caadiya ha wallahi iskiri hadda WhatsApp ku soo diraya fiiri qofka ka dhamaanaya ma garatay gabadhaas si qiiro leh page post caadi bay qortay oo replay ma garatay oo committee replaygeedu wuxuu noqday kaliya fuck you naya ma garatay marka nin meeshan Malaysia la dhaho rag iyo dumar la isla dhaamo yaxbulow maba naxaanba niyow gabadha hadda niyow ii sheeg amiiro ugu qoran tahay axmed haddaa ka warqabtay hadda ka hor arrin baa qabsatay soomaaliyoon dhan baa u kacday so kama warqabtid aad iyo aad maanta ayadii oo gabar ah weliba oo gabar walaasha dhaadsan hadday waxa isla garatay ayadu ay inay saa dhahdo in adeerde dib bay ugu soo laabanaysaa haddana fahamsaa صح soomaalina waa taqaanaa dee maalin hadday ku arkaan waa bas soomaaliha kolley waxa liicaata iyo dhallinyaradaasoo dhamme ay wada arkeen youtuberada ah dee kolley arrimaha bulshada dhallinyarada ka hadashaba arrintan inooga xeel dheer waxay hore u arkeen 3 sano ka hor arkeen waxa weeye baa waxa weeye kolley jira hase ahaatee waxaan u sheegayaa dhallinyarada xasuusinaya 2500 gabadha walaasheena Soomaaliyeed ee dhibaatada muddada halka ku haysay waxa weeye subscribe-keeda hadda 80,000 baa shalay maqribkii ka soo qaadnay hadda maanta oo duhur tahay oo waxa weeye waxay maraysaa 160 caawa insha Allah ilaa caawa 200 aan xirno waxa weeye dadkaasi inaga wax nagu ahaayeen iyaduna inaga inay wax nagu tahay aan tusno waxa weeye intaas aan ugu bogadayno hawsha ha socoto waxa subscribe ha socoto hore aan socono laan dheeriyaal intaas aan soo korayna ay xasuusiyo yaxbalo idin sheegay Ahmed inta ku sheegaya Ahmedow ma maqlaysaa ku soo liba yo dadkaas hadda anagu si gaar iyo dulmi waxba kuma wado khaladka galeen inay qirtaan maqaldamo ilaahay moogta aad oo 100 qof ku aragtay inay qirtaan weeyeen ani ma daaqal ani fiilmaad wiil mud ka qaldamo adeeg ka qaldamo yarkaas odaad ka qaldamo de Soomaalida bay arkaysa moogta haddaan inta soo fariisto aan waa isla saxanahay dhaho dee weli waa khaldana qaladkii baa ku jira laakiin haddaa dhaho war waa khaldamay maqaldamo ilaahay ii sheeg yaan laga qaban haddaa dhaho oo halkaa wixii aan ku qaldameen aan dhaliyad dadka afis weydiisto dee qofku dee bilaadan moogta hore baa loo soconaya laakiin haddaa wixii ku adkaysatid aan rabtid qof kasta soo socotay aan dhulka la jidhin dee waxaa shaqaynaysa dee ma shaqaynaysa waxa shaqaynaya ma aha waxa shaqaynaya ma aha dadka waxa weeye dadka cidna duulaan ku caddeynaya ma weerarayso laakiin qaladka galeen baa rabaa in runta looga sheego dad baa way jira si kala aragti kala maya dhalinyaro Soomaaliyeed bay ahaayeen malaayiin ku xiran tahay Soomaaliya waxa loogu xirnaana waa wanaag iyo Soomaalinimo waxa loo daawo waa wanaag dhacay saxaafi adna waxay ka baxshay balgalin bay ka baxsheen baa yiri waa saas kala rabaa سيد أحمد aad iyo aad yani dadkan khalad bay galeen khaladka galeen waxa weeye gabar walaashooda dhibaato haysto bay garab istaagi waayeen iyagoo waddan la jooga haddana Soomaalinimo Soomaalinimay ummadda ka hor imaanayeen haba garab istaagi waayeene haddana waa been abuureen arrinta sii qarxisay ee waxa weeye Soomaali oo dhan ka tiiraysay waxay tahay been abuurka gabadha codka la soo jirjiray muuqaalkaas weeye way ka been abuurteen fiiri sax way ka been abuurteen waxay isugu dareen socdaalow been abuurka waran garab istaag la'aan iyo gabadhii oo tacsiiraysan oo ay been abuureen arrinta been abuurka abaana arrin la yaab la noqotay ummadda dhan la yaabtay qof kasta la yaabay marka niyo horta yaxbalow mid baa kuu sheegaya kiiskan reer Malaysia sameeyeen dadka Soomaaliyeed waxa la dhahaa dhalinyarada ugu xun ama waxa weeye social media isticmaala waa dhalinyarada anigu aan ka mid ahay arrimaha qabiil ka hadasho ma garat sida caadiga ama aragtida laga haysto laakiin reer Malaysia annagay naga xun sababtoo ah dhalinyarada meega qaata ama qabiil ka hadasha ama qabiilka isu maagta walaahi billahi tallahi damiir Soomaalinimo wali ma arag laba dhalinyaro arrimo qabiil ka hadla oo waxa weeye tiiraayo ama dhibaato ka dhacday Soomaaliya ama qof dhibaato haysto ku tiiqtiiqsanay inay caawiyaan maahay ma beenta baa yaxbalow inta meesha joogtay aad iyo aad
weli ma dhicin marka reer Malaysia waa dad waxa weeye another level weeye marka insha Allah waxa weeye muhiimaddu waxay tahay inaan khaladkooda tusno gabadha walaashiina aan garab istaagno labada qodob baa miiska inoo saaran صح baba intaas ba waxaan ku darsanayaa gabadhan walaasheen ah bishaan gudaheeda waa inay half million gaadhaan half million حتى كبدن قبلنا وقتها ملايين وقانتا ما واحد شيء يا ايش ستيب ستيب لا بيش كمان مليون كحدو وريحبل مليون مغلا وين مليون مغلا سو دو ورartu waa salaamaya dhamaantiin yaxbul qolka nagu marti qaaday waana kaga mahadcelinaya runtii qof walba oo Soomaaliyeed oo public figure ah ama maaragtay baraha bulshada magac ku leenaadee wixii xun inay ka hor yimaadaan xaqa faraysa Axmed Fuad waa ku salaamaya fayeen socdaal waa salaamaya waa ka qaaday wiil mudug inaad rabto arinta aan saddex u kala qaadno horta koow gabadha Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbiga uu qaboojiyo صغيركنا إلهي هو نحريستو waxaan rabaa midna inaan maaragtay horta ka hadlo nimankan double figure ka Malaysia jooga horta ayaantii ay gabadhu ay la joogtay wax la duubi jiray ay maartay waxa weeye waa soo dhawaysanayeen intaas gabadhu ay cilmaha cisbitaal kula jiray oo ay kala daalan dhacaysay oo kala geed la rafaadaysay war waqtiyada qaarkood intay gaari kareystaan bay wax maala yacniya 10 saacadood 3 saacadood 4 saacadood ku bixiyaan challenge iyo balaayi quran ay sheegayeen horta meeshaas waxa idinkaga cad oo Soomaalida uga cad qof walbo oo Soomaaliyeed waa inuu guraadle oo social media wax kasta kala socda war qofkii shalay waqti u helay inuu challenge gaari intuu u kareysto 10 saac 3 saac 4 saac ku bixiyo ma wuxuu soo booqan waayay ilmaha yarka meeshaas waxa idinkaga cad marka dadka Malaysia jooga inaysan ahayn dad naxa dad damqada dad danahooda gaarka iyo viewskoodii arimahooda kaliya ka fakarayna yihiin horta gabadhaas wax kastana waa cadaysay wax kastana waa sheegtay taas waxa igala sii daran ninkaas asad xaji oo ilayeen anu public figure dhameeyay dadka inta guraadlaha halka kala socda social media kala socdaan kamid ah cod buu soo duubay YouTube-kiisu soo fariistay shalay gabadhaas markay caawinaad u baahnayd ilmaha saqiirka war yuusan wax u qaban yeeysa waxba siin yeeysa waxba tarin war codkoodu meel dheer buu gaaraaya ma dhihin wareed ilmaha yarka xanuunsanaya dhibaataysan Soomaaliya loo gurmado maysan u tagin oo soo bariidin say tahay niyadii u roonta intuu soo fariistay wuxuu yiri wa shamsi maxay iga qaadaysaa hadda meeshu eeda loo soo jeediyay iyo xaaladaas iyo ceebtaas iyo fadeexadaas iska rogi lahaa u dhiilaha warsaas isaas wuxuu jiraan dhiilaayo cadayn lahaa wuxuu taagay wa shamsi maxay iga qaadaysaa waxay iga qaadaysaa anigu talentiga aan ku jooga social media waa ku diray waliba qolka ayuu ka raxalay markuu saarnaa Soomaa ha wuxuu taagan yahay hadaba dad hor la ii kordhiyaan wa shamsi maxay iga qaadayaan waa nin weyn oo milyan iyo wax la jira ummada oo Soomaaliyeed ku xiran tahay heerka uu hadda gaarsiisan yahay YouTube ka gaarsiisan yahayna Soomaali baa gaarsiisay marka anigu mid baan ku darsanaya hadal ku dheeraan mayo dad badan oo public figure waa ka soo hadlay lii caato nin Malaysia soo joogi jiray dhalinyaro ayo public figure oo laga yaqaan weeyay social media ninkii ugu dambeeyay CK oo hadda tagay ka warbixinaya waa arkaysay inuu runta ka hadlayay in adeeryaal marka dadka social media ku jiro oo ninkaasi ma aragtay dhaliishiisa qarinaya iyo dadka public figure-rada Malaysia joogo dhan iyo asxaajiyo iyo kulligoodba gabar iyo wiilba kala saarmay waxa weeye runta iyo xaqa ka hadla oo banaanka u soo baxa oo runta banaanka keena ninka sida u hadlaya hadii marka laba ku darsanaya haday ka toobad keenaan yiraahdaan war cafisna waa dalbanayna Soomaaliyay khaladkaasna waa galnay hadii waa ragnimo laakiin ninka la soo taagan waxa weeye wa shamsi waxa iga qaadaysa male war Soomaaliya idinka shalay meesha gaarsiiyay dhulka halkii xaasinimada lagu sheegayo Malaysia waxa yaalana waxa weeye waa wax Malaysia gaar ku ah meel kale oo hadda arintaas laga sheegay ma arag iska badaa gabadhaas maskiinta ah ilmaheeda Allah u naxariista saqiirka dad badan oo public figure oo aan ayaga u baahnayn ba 4 saac ka caban jiray waxaan dhigi jirnay dadka maxay uga cabanayaan maxaa ku gaara marka hadda wixii ku gaara aragnay ninka weyn ay maaragtay gabadha maskiinta ah ilmaha ka xanuunsan yahay Allah u naxariista saqiirkaas
soo booqan waayo u tagi waaye oo bartiis intuu soo fariistay oran waayo war ilmahaasi gabadhaas waa isku dhiban yihiin Soomaaliya hal caawiyo maanta la soo taagan waa shamsi maxay ka qaadaysaa ceebti iyo fadeexada meeshu ka galgalan lahaa dhii la warsaas ma waxa ma jiraan saan waxa jiraan marka Soomaalida indho guraadlo weeye indiina idin macalinay waxa weeye dadkaan idinka korba oo walba qaaday hadana dhulka geey wiil midow meesha lahayd baa dhigtay haddii wax loo sheegayo dadkan waa u sheegtay haddii wax maqlayaan oo qaadanayaan way qaadanayaan axmed sidoo kale socdaal sidoo kale horta waxaa la yidhi wadar iyo waaxdii awaalan war dadkaas si saxdaa markii laga hadlo waa dad anu markaan fiiriyey danaystayaal ah oo ayaga raba keligood inay isku koobaan oo qof walaalkood ama qof Soomaaliyeed oo wax uga soo baahday ninkan war fiiri hadalba maxaa loo saarnaanayaa kan meeshan la saaran kan socdaal ah soo kii shalay markuu wemelinka gaari ooyey ma dhahay ma ninkan Soomaha ninkuu ooyey oo farxad darteed oo la shaqeynay oo soo jeeday Soomaha tee maxay ku sameeyeen saas anta loo soo qabtay bisadii oo banaanka lagu tulwaaliyay wallaahi billahi hatta YouTube frid oo ka soo heshin waa ku dilayna bal waxaas ka warrama bal waxaas idin ka warrama ninka arkaan la saaran ba waxa lagu sameeyay kole ninkaas asaga iyo ragnimadiisa uga baxaya Soomaaliyeenu waxa ka soo bayaaniyay Soomaaliyeed waxa ka codsanaya kuwaas idinka subscribe siiyay ninka dhalinyarada subscribe siiya taageera tusa views-ka ee helaan inuu heli karo tusa ayaka inay idinku wax nagu yihiin kan wax nagu noqon kara inta tusa muhiimad u taas weey gabadha walaasheen ahne waxa rabaa oo naga codsanaya oo codsi ah ina ayadane daruuraha geesaan kuwa shal daruuraha geeseen kasi kormarsa ayaka hoos geesaan dhahdaan idinka shal xaga inaan geynay gabadhan walaasheen maanta inaan geesanayna idinka inay taala inta kaliya sameey wuxuu aaba intaas wax balaaya maahan وشمسنا هالصعود الشلبة بلا بطي شل إنك يقول أنا وها أو يريد وشمس قاعد وضدك قبل داود ولا مقرني لكن ولا لما يسمعني أو دقني ما أنت الله وجي بريس ضحك كذا أيك ما أنت أفراد والله صفر سنة عوالية مركز خلق تقرني يعني وبالله توفيق إذا استعيد كذا ورتمن هذا غير معي سان قفت أبو غلط مني ومن تاسبه سيدا وما غير يقولون ما يقول كذا اللي يرد على كاميرا الوعد على سنة واحد والبنات كاس كعدي اللي عاد هالكاس سوق بصدي هالكاس كعدي سي كيو بالفكرة الصومالية تحملها وحوي وأركيسين وحوي الصومالية دو ماشي أي عندها كوفي قدام فرق